السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين وايد السلام هيا سودا وهذا مير والبيت الدنيا كذا سوتي وواسك تقبله وهاك بلو فارح ولا الكيس معه كي كيرا بشير بالله مطانين حاسة قرص صاحب كيس قرش ودرس كيس كنولا ورا وناقرسيك وسها جابك جلكتي معنا شورية بناويش أنت ما بغوري هذه لان ديرة دلي وبناك هتاجنه سودا وهذا إذا الله هاي كذي أبرتو ماشانه بلوك الوقت هو صوبته بلوكرينا وحواي تقبلوا وعاي كرتان وكتب كرتان ولا كفتم كرتان لكن هويها عين مقرسة كلها تقبلوا إيد نظيفة تاي مقرسة هذه كلك سكر وطف لكن هويو يوالد هذيك هوي ده وحوم يسقلب سن أنا هوي ده وحوم يقلب سن أنا والد عايسيد ميل سياسة لوجه الله دقني بكوتاي بلوك قبنا هذه سودا وهذا ما شاء الله سيشر قري ديكم ماسن سومالي واقولي ستي نبضي نرول واقولي ستي دل كان واقولي ستي وانا قولي سنين اقوشنا مروال بيتو لنا عنك اهانيسا هذه وحكى الله يا ارنتا شركة جيبوتي سومالي لان ودحيو iyo waxaan kaloo ka hadlayaa magaraysaay arinta Axmed Madoobe iyo Jubbaland iyadana xaaladda dabka saaran dhowr arrimood ba dabka isla saaran marka anigu insider baan ahay siday wax yihiin iyo siday wax tahay iyo duqbulo bartaan idin ku soo gudbinaya insha Allah hadii la rabo waxaan ku hormaraya Axmed Madoobe horta Axmed Madoobe waa aqoonsan Axmed Madoobe madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waana aqoonsanay waxaan u aqoonsanay madaxweyne ku meel gaar inuu yahay muddo macnaha ka bilaabanaysa maalintii uu xilka ka dhamaaday magaraysaay doorashada aysan dhici ka hor laga soo bilaabo ilaa iyo adiga ilaa hadda waxa socdo muddo 2 sano macnaha already hal sano waa soo dhameystay fasiraadeeda haddaan anigu idin fasiro oo xisaabta calculatorka isugu kiin dhufto waxa weeye muddo 2 sano siinay hal sano waa soo dhameystay hal sano kale marka muddo hal sano waan ogolaanay Axmed Madoobe inuu magaraysaay madaxweyne si ahaado aad iyo aad inuu madaxweyne si ahaado waan accept gareynay waan ogolaanay aad iyo aad shinni bay soo gashay muddo hal sano Axmed Madoobe waa aqoonsanay mudane Axmed Maxamed Islaam inkastoo anigoo duqbulow aad u jeclaa inuu kismaayo dhaafo Jubbaland ay xor noqoto Jubbaland ay madax banaanaato Jubbaland uu duqbulow aan laga soo celin diyaaradda oo si sharaf leh ku tago aad baan u jeclaan oo duqbulow dagaal iyo halgan dheer baa la soo galay beesha caalamka cadaadis ka yimid iyo magarasha deeq-bixiyaasha Soomaaliya siiyo dhaqaalaha cadaadis badan oo ka yimid iyo si nabad loo helo si dadka la isugu soo dhaweeyo si ummadda isugu soo dhawaato waxa weeye nabad iyo nolol iyo mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa ay ku qanceen oo accept gareeyeen in Axmed Madoobe muddo 2 sano la siiyo oo ku meel gaaray hal sano soocun hal sano iyo waxoogo adiga hadda u haray dhim malaha insha Allah duleeraado taana waxa waqtigeed markii la gaaro waxa weeye waa la soo afjaray si wanaagsan oo qurux badan Axmed Maxamed Islaam waa madaxweynaha ku meel gaarka ah ee maamulka Jubbaland saacadan iyo waqtigan aan ku sugannahay Axmed Maxamed Islaam waa madaxweyne ku meel gaara oo ka talin doono gobolooyinka jubbada hoose jubbada dhexe iyo gado si toose u hoostagi doonto way aad iyo aad gado waxay ka amar qaadan doontaa madaxweynaha ku meel gaarka ah mudane Axmed Maxamed Islaam jubbada dhexe oo iyadana al-shabaab laga xoreyn doono waxay hoostagi doontaa mudane Axmed Maxamed Islaam jubbada hoose oo Kismaayo iyo meesha ku sugan yahay ahna waxay hoostagi doontaa madaxweynaha ku meel gaarka ah Axmed Maxamed Islaam waa siyaasadda noocaas waxa weeye mar walbeeto hal meel lama taagnaado xaqiiqda dhabtan waxa weeye cadaadis badan baa yimid waxaa timid magaraysaa pressure caalami baa yimid oo siyaasadeed marka waa lagu qasbanaaday maadaama waqtiga la guur la marayo wax uu duqbulow dhahayo ma aha waa wax ay dawladda Soomaaliya in nabad iyo nolol ay go'aansato weeye ma sha Allah hal sano hadda kadib macnaha Axmed campaign ka dar waa ku qaadayna marka taa dawladdeeda iyo madaxweynahayga Soomaaliya anigu marnaba kama soo horjeedo taa waa soo dhaweynaya waana garab taaganahay waana ku qanacsanahay waxa weeye si sharaf leh oo quman oo karaamo leh ayaan u soo dhaweynayaa aad iyo aad
أحمد مدوب أسجنا ورقد بو صوصاري وليه هاي ورقد ومدحوين محمد عبد الله فرماج صوصاري لصور دقي برت إنترنت كه وحاول يكون مقنع سنين أنه أفر سنة رمنا هل سنة لبا سنة دون منه مركا وتانو قام بلقى جارية بيش عالم كدب له وعلي يا جواب تشبحي بالمركا سهل كاسن كدولنا ماشي أي واحد هذه دور المركا يده أحمد أنت أحمد مذوبي مامل كميل جاركا جنبه معناه هذا حساسية بدل مله واحد هذا حساسية له أو ما أنت مقرن ساي ميديا الصومالي ذا هيستو اللي قوده هذا وحواي أنت وده هذا الكصوماليا يسومالي لان أكيد عجبوتي أنا يا مواطنين الصومالية مرول با وحان لنا هاي ومقدس لما تابتان مدح بنانيدا الصومالية هي من نمد الصومالية قف والبقو الصومالي موادن والبقو الصومالية وحاوي وحا كقوان من نمد الصومالية هي مدح بنانيدا الصومالية بكقوان سيداد وقت هي لدل سعوتان دراتو يا بيتكيغ وحان صور ديغون كسو قوري إن مدحوينها الصومالية يا مدحوينها السوماليان مصبيحي أي كل مدونان دلك جبوتي شركة waxay soo qaban qaabiyay dawladda Mareykanka safaaradeeda Soomaaliya dawladda aan walaalaha nahay ee dariska naga ah ee Ethiopia iyo magareysay dawladda Djibouti oo gogosha dhigtay iyadana aad iyo aad shirka si wanaagsan oo qurux badan oo ciz leh oo karaamo leh iyo u furmay musabixi cabdi roog guduudan baa loo dhigay asaga iyo madaxdiisii roog guduudan oo qurux badan oo sharaf leh ayaa loo dhigay si magareysay maqaamkeeda uu aad u sareeyana waa loogu soo dhaweeyay madaxweynaha Soomaaliya asagana sidoo kale shirki waa la galay waa la wada fariistay ajandayaasha laga wada hadlayay waxay ahaayeen ajandayaal diyaarsan oo 2011kii soo bilaabay way ahaayeen hal qodob oo waxa jiray 2011kiina aan laga wada hadlin 2012kii iyo 13kii madaxdii markaa joogtay iyo madaxdii Soomaaliland iyo Soomaaliya u joogtay waqtigeeda aysan ka wada hadlin لكن شركة هذا ما أنت دعي كدعي دلك جيبوتي أجندي شركة لوسوق الحارة شركة بقريساي لوسوق الحارة لوسوق أجري أجندي أقوى سنة وقيمها بدنا وشرفت بدنا أيام ميسك للصوصار مدحوينة حسن الشيخ محمود ميسك ما صوصار لكل ما يسومالي مدحوينة الشيخ شريف شيخ أحمد لكل يسومالي لكل ما أجندها قضب كأسجة ميسكا مصوصار مدحوينه محمد عبد الله فرماجو iyo shirkii maanta ka dhacay Djibouti iyo walaalaha Soomaaliland qodobka ugu muhiimsanaa ee ugu wanaagsanaa ee ugu sharafta badnaa ayuu miiska u soo saaray waa maxay marka qodobka asaga waxaad arkaysaan cayayaankii baraha bulshada dadka aqoon la'aantu haysay dadkii maskax la'aanta ahaa dadkii garaysaa social media inay ku caytamaan waalid lacay iyo dad lacay u soo galay macnaha ma qaada dhigi karaan oo ma fahmi karaan waa shirkii baa burburayay shirkii baa tagayay shirkii baa noocan noqday shirkii baa saan noqday iyo suuqa la soo galay waxaasoo waxba kama jiraan raggan meesha tagay wada hadal bay u tageen wada hadalkaasna waa inuu mid dhab noqda ama hal isku diido ama la isku ogolaado xasan wada hadalladii Soomaaliland la galay waxyaabo kale ahaayeen Sheekh Shariif waxyaabo kale ahaayeen farmaajo iyo madaxdii halka tagtay ee Soomaaliland qodobka ugu muhiimsanaa ee waligiiba la soo dhirinayay ee waligiiba la soo magareysay la soo tukanayay ee waligiiba magareysay la soo kutukanayay ee waligiiba la soo dhadhoobayay ayuu madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo waftigii la socday miiska u soo saaray waa maxay qodobka asaga shirka intiisa horeeto nimanka reer Soomaaliland reetolkay waxa weey xaaladooda ay waxay jecel yihiin in la yiraahdo maqaamkiina waa sareeya uu ku yiri farmaajo maqaamkiina waa sareeya waxay rabeen in la yiraahdo ma garanaysaa dawlad batiin okay dawlad macnaha maamulo dhisata tiin ma sha Allah xaga kursiga dawladaha lagu fariisiyo yaa lagu fariisiyo okay kursiga waa lagu fariisiyay madaxweynaha kale waa lagu soo fariisiyay ra'iisul wasaaraha Itoobiya lagu soo fariisiyay wax walba ay codsadeen nimanka Soomaaliland waa loo soo dhigay miiska waa loo sameeyay roog guduudan noo dhigay waa loo dhigay madaxweynaha Djibouti iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya iyo madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya aan garab fariisan kuraasta loo dhigo kaleeto iyo title-ka lagu qoro kaleeto anagana ha noo dhigo waa loo dhigay wixii domestic ahaa ee gaabagaabayda ahaa ee raggan ay raadinayaan dhan waa loo dhigo okay waa fariisan marka maxaa ka hadalnaaba meeshtaan waxaan ka hadlaynaa
oo aan meeshan u fariisanay waa masiirka dalkii Soomaaliya kursi waa la dhigay farmaajo waa lagu fariisiyay khayr waa lagu fariisiyay madaxweynaha Jabuuti waa lagu fariisiyay ra'iisul wasaare garaysa Itoobiya meesha fariist safiiradii Mareykanka iyo wadamadii deeq-bixiyaasha caalamka meesha fariisteen Muuse title kaaga lagu qoray okay real talk ragga waa ka xanaajiya marka real talk raggu waa ka xanaajiya sababtoo real talk runta miiska la soo saaray wax walba xasana soo dhameeyay wax walba sheekh shariifa soo dhameeyay wax walba guddigii farsamada ee labada qaybood kala matali jiray ee meelaha kala duwan ku kulmay yaa soo dhaweeyay this time waa the reality marka reality-ga waxa ay tahay waxa weeye Somaliland iyo Soomaaliya maxay kala aaminsan yihiin maxaa dhacay maxay rabaan maxay ummadda Soomaaliya rabtaa meesha taal waxa meesha yaalo ee ummadda Soomaaliyeed ay rabto waxa weeye in midnimada Soomaaliya laga wada hadlo dhageysta hadalkayga labada qaybood waa ummad Soomaaliyeed weeye sheekh muxuu ahaayay ninkii la oranay Musabbixi waa ummad Soomaaliyeed ninkii la oranay Farmaajo waa ummad Soomaaliyeed labada ummad Soomaaliyeed bay kantaroole laakiin xaqiiqda meesha taalo waxa weeye waaga hore wixii lagu meereysanay waa la soo afjaray way soo dhamaatay sidaan idin sheegay روج دون دقة ولا يدي مقام نقصه ده ولا دوبي وعلى مناسبة ولا سبي نبض قلها لقد ولا قهلا حقيقة بحي توحوي وحال كان السوي مد حال كان السوي كان يدت كان مدح ده مسؤوليته إنه يكوض هاللان حقيقة النبتة حقيقة النبتة رضي الله عنهم مدن محمد عبد الله فرماج لما جبنن أجنديه قضب كأسجها يا ميسك الصوصار قضب كأسجها وحوي إلا جوض هالله من لماذا أمد الصوماليات إن لقوا هذا قاب كي للدورو هاللو غرفية مركز سجن إن لقوا هذا من لماذا أمد الصوماليات وأنا صوبت برتا يد اللو يمدوي لكن لما كي نعن سبال لك السعودي هايين مقرر مسبحي إذا جروب كودي كلتو وحيسو يستاجين واي لوجه الله من لماذا دلك الصومالي واي لوجه الله يا من لماذا أمد الصومالي محل لوجه الله ما وحكى لك وحال ويري وفتق النحى الصومالية يوفتق مريكا كالسعودي يوفتق إثيوبيا كالسعودي وحال يري أوكي موسى وكالد محل عن تابع الويري what kind of medicine استعماش محل كصدقنا الويري وبرتن ديارة أصور رعني ومقرر ساي جبوتي أن علاسك أدل صارني وداديو ديارة أصور رعني وفرماجات ديارة أصور رعي ونانجا ديارة أصور رعني وبرتن أني متبحيتها هذا لقاه لين بوقتي يوحي الله بعنا أول جد بالصوت الرناي حقيقة هذا لو جود بين الريالتي الآذين أما الديد أما يال بلوغير أما الديد أما يال كذا لكن ريسون إيو حنوني متبرتن إن عن وحجرفينه أما واسكو قلانينا أما سكو قلانين لكن إساق بيش يدورو ده شيء هل نينا وحلا سعود دارس معيله وده شيء بيش البهانته ووزير كارمها الدبدة أو كشغاب بدنا هينين صور كلا صور دقني ودار كيسين معناه هنا مش أفر وحياة شن وفتق عن كسر السمالان شن تنم هبر أول هبر عيسى هبر مجاده هبر وحوشه هبر جيد جبسه هبر أول هبر جعله هبر بلا هل نقول بهتان ده سعود أو أبتلو يهي وحلو يردم لها وندين جدنا وندار كنا إن هالقبيلتهين إن عن كلا لا تصي وحالي يردنيكا وقدوميها برلمانكا ورحوين إلاي نكان وحالي رئيس الوزراء الصومالية وهوية ومرصدة مقرسة نكان ومدحوري الصومالية ومريحان ودارود بالويري معناها what we see ودا مقرسة قبيلة ووينا الصومالية عاركنا لي رئيس الوزراء وهوية قدوميها برلمان كورحوين إلاي مدحوري الصومالية وحلوير مقرسة ودارود ومريحان سده حلوير إذكوا تصور لما له درنا كان وهبر جعله كان وهبر مجاده كان وهبر وحوشه كان وهبر جيد فول كان وهبر بالقلته كذا لا فريسيسن والبهنته حلوير هذه حلوير باش كل حالات سيده تايبه انه ويديك الصومالي idin dhaxana sii galbeeyeen laakiin xaqiiqda dhabta waxay tahay madaxweynaha ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed Ethiopia ka socda lagu yiri safiirka Yamamoto Mareykanka ka socda lagu yiri madaxweynaha kalena madaxweynaha Djibouti lagu yiri safiirkana safiirka midowga Yurubiyaanku ka socda lagu yiri marka waxa lagu yiri waxa dadka kale oo dhan markii la fiiriyo الأركان على ويرد ومشكل إيه ضد دولة مثلية لكن يذكر على قبيل باتين بركو على ويرد قبيل كان أنت وحي وطبعا يدون قلينا ماشي مركها عرنتو كتب شرجة رايد بالغبط هذا الكي قادر يقول شرجة رايد بالغبط يا برد صبحي لبض النعبة
وحوي لكن مريكا كان واحد ناقي إثيوبيا واحد ناقي جيبوتي نفتر كذا واحد ناقي نمن كيساقنا أفكي فرتين وأنا روي هذا كهر جيم كلا يعني ربك عريبو سومالي بنا ساقنا وريتول كهر عيد كي نفتر كود أد بيقولوا السودان سومالي ذا كلا تنا حقيقة واحد جيران حبرتك ونفتح واحد عيبة مركي دي شيء قاعد يستر سومالي لان مرول بؤشر أي سومالي لقليسهم وأيدودي جرتين حتى دولدي شيخ شريف دولدي حاج شيخ محمود ودواق جيرين بيش عالم كحي توس جيرين صور مرول بتسنبث اللغسي وحي أوران جيرين وفتيجا أي سوماليا نوصو درتي oo ay rabto in la fariisiiso waxa ku jira rag waqooyiga Soomaaliya ka soo jeedo oo warsangali ah oo dhulbaantay noo soo dirayaan iyo niman isaaq ah oo magareysay ka socdo dhinacan dawladda oo nagu bahdilay markii dawladaha caalamku waxay dhijireen annaga arrinta magareysay waa saan way sanbati baa la siin jiro beesha caalamka tribkan dawladda Mareykanka shirkan qaban qaabisay oo qoodeyso dhaqaalihiisa iyo fadhigiisa iyo hawshiisa dhan gashay waan arrin loogu talagalay Soomaaliland beesha caalamka inay ku aragto waxay meesha ku hayaan iyo waxaan ay la ordayaan iyo maradan ay wadaan iyo hawshan ay wadaan iyo waxaas waraad ma toodan baan anigu waa muslim mugtay hadda go helay green light ka I have to analyze sidii wax yihiin okay nimanka marka waa loo sheegay hadda koor madaxweyne maxamed Abdullahi Farmaajo iyo magareysay madaxweynaha Muuse Cabdi yaa waxay ku kulmeen Addis Ababa shir degdeg wad xustaan oo hadda koor idin sheegi jiray oo xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya lagu kulmay ee dhawaaqa badan kixi waa loo sii sheegay ninka la yiraahdo Muuse waxa lagu yiri isdiyaari shir weyn la qabanayo bar we not gonna tell you meesha lagu qaban doono waxa markii la diyaariyo oo magareysay hawshiisa la habeeyo oo bariga dhaxan noqoto yaa lagu soo magareysay invitation ka lagu soo diray Muusabix oo Muusabix arintaas uu ku faraxsanaa xaqiiqda meesha jirtana waxa weeye Somaliland horta dhaqaalaha waa laga gooniyaa waan galay arinta kale lacag 800 oo kun oo milyan oo dollarka Mareykanka ah Soomaaliya bishan July markay hadda hadalkayna fatabarro 800 oo kun oo dollar 1 milyan oo dhiman 200 oo milyan oo dollar dhiman yaa Soomaaliya loogu deeqaya maamul goboleedyada dalka dhan baa la rabaa in magareysay la hormariyo mashaariicaha dawladda oo dhan iyo amnigeeda oo dhan baa la rabaa in la hormariyo hawshaas marka socoto inaad fiican u faataan 800 milyan dollarka waxa weeye waa in marka la arkaa Soomaaliya oo mide waa in la arkaa Soomaaliya oo midaysan oo magareysay xaaladeedu bariga dhaxay halka bilyan waa 1 billion dollar waa sababtaan magareysay dhaqaalaha Soomaaliya ciidankeeda wax badan buu ka taraya dib u soo dhiskii iyo dib u soo nooleyntii Soomaaliya wax badan buu ka taraya waa magareysay budgetka sanadlaha weeye halka waxaan rabaa wax yar fahantaan oo wax badan aad idinka qaado maadaama aan anigu insider ahay oo aan iska qeylineen oo aan dad cayn magareysay idinka caay hadda rabtaan waxa tira duqlo ee nadiif hadda rabtaan laakiin hooyaha cayn dhageysto waa sababta 2 sano oo ku meel gaar ah u siinay Axmed Madoobe ninka Axmed Madoobe 2 sano ku meel gaar baa siinay magareysay ninka Axmed Madoobe waa aqoonsanay waxaan siinay 2 sano oo ku meel gaaray nimankii Somaliland aan maanta la soo kulannay nimankii Somaliland maanta la soo kulannay aniga maanta waa aamusnaa haddaan go ahead haystaa hatta si fiican wax idinku waram karaa ninkii Axmed Madoobe aqoonsanay waxaan siinay 2 sano oo ku meel gaaray ama ha dagaalamo ama ha buuqo ama baal kala dhoo 720 hadda shir kala dhacay insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo bishan June aan ku jirno gudaheeda oo magareysay madaxda maamul goboleedyada dhan way orday ku qasab adwali orday maxaa dani orday imaan doono Axmedow orday imaanayo waara lugta gareeno orday imaanayo qoorqoor orday imaan ku digood waa wada keenina waa la fariisanaya waxa way dalkana loo daneynaya marka halka markay marayso horto arinta waxa keenay waxa waaye budgetkii deeq-bixiyaasha caalamka ee Soomaaliya magareysay dhaqaalaha siinayay iyo bangiyada deemaha oo naga cafiyay oo deemo badan noo ogolaaday howlo badan ba iskor saaran Soomaaliya marka hadda waxa lagu tijaabinayaa oo la rabaa in la fiiriyo in 800 oo kun oo dollarka Mareykanka waa 1 bilyan oo dollar oo dhiban 200 dollar inay maamulada Somaliland Jubaland Puntland Hiblowland Brandon isku yimaada mid noqdaan hawsha ku dhacday okay isweydiin naftirkaaga sababta Axmed Madoobe uu siin 2 sano Somaliland ula kulay halka markay maraysaa raba waxay reeyeen tuso iyo shirkii Djibouti dib ugu noqdo iyo waxa ku dhacay nimankii Iidoor ama Isaaq ceebta ka raacday iyo bahdilaada ku dhacday baan idin sheegaya ceebta iyo bahdilaada ku dhacday waxa weeye nimanka Somaliland mar walba ay Soomaaliya la kulmayaan beesha caalamka u ordi jireen u ooyi jireen u dhawaaqi jireen oo waxay oran jireen nimanka Soomaaliya waxay noo soo direen
oo rabaan inay shirka ka soo qayb galaan ma ogolaanayno ninka waa iidoor ma ogolaanayno ninka waa dhulbahante ma ogolaanayno ninka waa gadabiirsi ma ogolaanayno ninka waa warsangeli sababta warsangeli iyo gadabiirsi iyo dhulbahante waqooyiga Soomaaliya degan yihiin nimanka isaaqa kaleem gareeyo oo xidhan anaga mas'uulka oo dawladda Soomaaliya nin macnaha reer waqooyi shirku ma soo dari kartaan okay beesha caalamka shirka markii la xarxaaray hawshan gobasheeda la fidinayo Muuse Biixi Cabdi iyo iidoorkii lacagta way ogaayeen 30% amal ku leeyihiin because waa kan weyn maamulada kaleeto looma sheegin Muuse Biixi Cabdi shirka waa loo sheegay inuu madaxweynaha imaan doono oo madaxweynaha is arki doonaan waa loo sheegay laakiin Muuse Cabdi iyo qolooyinkii iidoorka looma sheegin oo looma dirin shirkan waftiga ka qayb galayo ee ka imaana Muqdisho dadka ay yihiin looma sheegin This is political way. It is not ambulo la cunaya ma. It is not wax gacmaha lagula jiro ma. Muuse Biixi waxay ahayd inuu isa soo diyaariyo. Maadaama uu dal hogaaminayo dhageysto oo uu leeyahay dal baan xukumaya, dal shuruudo dal lagu aqoonsada jirto. waa inay dad multicultural wada degan yihiin waa in magaraysa xaaladda bariga dhaxatay waxaad kaleem gareynaysidna inaad ka run sheegtid baa loo baahay sababtoo duwaanka ay Somaliland United Nations ka geysatay iyo wadamada aqoonsiga ka raadsanayso iyo meelaha dhaqaalaha ka raadsato waxa ugu qoran inay mas'uul ka yihiin beesha daarood oo meesha degan iyo beesha direed oo meesha degan iyo beesha hawiye oo faqashin hawiye oo magaraysa habar gidir oo meesha degan tahay ma dhibaan oo meesha degan yahay oo hawsha noocaas ya warqada ugu qorrooday beesha caalamka u gudbiyeen okay this is the trick marka arinta dhacday wada marka dhageysid Somaliland in badan bay warqad qortay dirtay protocolkii iyo nidaamkii shirka lagu tagayay oo dhameystiran waa loo diray sidoo ku dhameystiran waxa loo sheegay inuu imaanayo madaxweynaha Soomaaliya waxa loo sheegay inuu imaanayo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya walaalkeen Axmed Abiy inuu imaanayo waxa loo sheegay inuu Ismaaciil Umar Geelle uu ka soo qayb galay dhageysta waxa loo sheegay in safaaradda Mareykanka qaybta Djibouti iyo qaybta Soomaaliya ayaduna ay meesha imaanayso waxa loo sheegay kuleeto in European Union safaaradahooda kuwa Soomaaliya iyo kuwa Djibouti joogo labadaba ay ka soo qayb galayaan Muuse waa loo sheegay Muuse waxay ahayd markii uu invitation-ka uu helay waa uu accept gareeyay inuu isa soo diyaariyay ahayd inuu intuu isa soo diyaariyo oo waftiga asaga kala soo qayb galaya shirkan maadaama shir culeyska aan ognahay lahaa oo magaraysaa powerkan ognahay lahaa waxay ahayd Muuse Biixi inuu intuu isa soo diyaariyo isa soo habeeyo isa soo hagaajiyo oo qabiilada uu yiri way degaan Somaliland uu magaraysaa isku soo dheelitiro oo isku soo shaandheeyo oo uu ka soo shirka uu kala soo qayb galay ma ka soo qayb galinay isaaq naftirkiisa siyaasadda isku bursanayo daaroodka meesha la deganay warsangaligii wixii dhow waa hilmaameen ciisi iyo gadabiirsi waa hilmaameen bandhibaanki iyo faqashinigi meesha deganay iyo ciisi waa hilmaameen ayar afar waxa soo baxday habar jecle afar magaraysaa habar awla afar habar yoonisa habro le meesha socday iyo hal nin oo dhulbaanteen majority isaaq minority dhulbaanta ka dhigan daarood matalay dib malaha dawladda Soomaaliya ma diidin dawladda Soomaaliya game wuxuu ciyaartay looma sheegin sirta waa la qariyay oo la kaliya waxa media loo sheegay oo invitation-ka ku qoraa in mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu shirkan ka soo qayb galay laakiin looma sheegin mayna ogeyn lama aysan soconin waftiga ka imaan doono dawladda federaalka Soomaaliya ka imaan doono looma sheegin maysan ogeyn madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo رئيس الوزراء حسن علي خيره قدوميها برلمانك دلك الصومالية عبد حاشي ولا غيره سي أي سنودين نين إساق على الصعود هذا اللي قاعد نقول نين إساق وسومالي اللي على الصعود سود أذق حلوين ما ملقوا له هوش قال هوش أو تحمل مدونة عسكر الله بصنا أقوى سياسيين وحاول هوش ساق وش على الوير عبد حاشي لساس وبيش كجهره وعم بيش صبح رئيس الوزراء حاش على غيره ومثلا بيش هوية قدوميها برلمانك وبيش دقلي مرفله مدحوينها الصومالية وبيش الدار oh my god ورقي جبها كل حي جب وربها كل حي بقريسة جب أن عادي أهين أو أن يكسو واقسنين مريكي وحناقسيهاي إتوبيا دي أولي ولا لين واي الله يركورتي وحناقسيتهاي we playing a game of political we not playing game of rare إيه قبيلي عريا وقيلنا عريا دكير عيد الباتاس لا عياري باش وحال عياريا game سياسية ولقى عدن مقل
oo weliga dhageysan oo magaraysaa aad iyo aad maqal yaa nimankii leenka xagga markay fariisteen oo leenka fariisteen waxaan beesha caalamku way daawanaysaa buug iyo qalin bay haystaa way qoraysaa wixii baa loogaanaya ninkii Muuse Bixi ahaa iyo odagii golaha guurtiga haystay magaraysaa adeerkii ahaa wadnaha xanuuna they disappointed bay noqdeen you know why may filaynin ayaga waxaa la weynaa oo aad ula weynaa Ethiopia ra'iisul wasaare magaraysaa madaxweynihii magaraysaa Djibouti madaxweyne waxa la soo fariisay madaxdii qarankanaga Soomaaliyeed lagama faanin because mas'uula laga yahay because waa dadkeeni waa walaalaheen annaga mas'uulka ayaga mas'uulaga waa dadkeeni weey waxa isku ina waa political amiiskii Soomaaliya calanka Soomaaliya lagu taxay waa soo fariistay ra'iisul wasaare radiyallahu anhu mudane Xasan Ali Khayre oo ra'iisul wasaaraha Ethiopia la baawray madaxweynihii Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo garaysaa gudoomiyii gobolka gudoomiyii aqalka baarlamaanka rag madaxdii dalka Soomaaliya ugu sareysay yaa loo safrisay oo qabiilo raxaw digil mirifle mid u matalayo midna u matalayo garaysaa hawiye midna u daarood matalayo dirtiina waxa lagu yiri daweydii ka day laandheerayaal وايد أفرط قبيل وحنا تصب جيم كان إجازة باش عالم سوماليا 4.5 كمغلي سواد 4.5 كسوماليا مغلي سواد دقلي مرفلة دارات هوية يقولون كصدري كوك حلوان اللي يراد 0.5 كي ما شاء الله وزير كجرة دم لها أفرط قبيلة هو وين هذا الصومالي اللي يجري حق يبسط لحدني كو حق يبسط الويري أو حلو سفريشي من حوار مع عبد الله فرماجة ومثلا باش مقرر السيد داروس معنا وحلو سفريشي رئيس الوزراء حسن على غير ران لغو حجاج رجلنا رئيس الوزراء حسن على غير مثلا باش هوي قدوميه برلمان كدلك سوماليا مدن مرسل ومثلا باش دقلي مرفل يا مقن مرت أفرتي قبيلة ووينا الصومال ووينا يا كم مقن در يا مثلا مسبح مثلا بس مسبح ندره أو يساق أو راشق سحاق وي ما شفافه ما شف واحد ضرب عيا تسوق لا بلغ يدلي وين دوخين وين وريرين ولا وين وارد بق ما تريش باش واحد ياله iyo buuga qoran iyo magaraysaa let's go back to the book and akhrin buugan iyo sidayta afartii qabiilada waaweyned yaa ka maqan Soomaaliya oo magaraysaa aad uga maqan waxa ka maqan beesha direed ma dhameystiro waxan in gameka isu diyaarisid beed ina gameka inta isu diyaarisid sidayta isu hagaajisid isu gijisid hawlada magaraysaa hada anaga kaftama laakiin beesha caalamka deeshii waxa lagu beesha caalamka maxaa weeye 4.5 daarood waa jooga hawiye waa jooga digli mirifle waa joogan yaayda ka maqan dir maxay dhahan waa goon maxaa rabnaa aqoonsi hal qabiil aqoonsi ma yeelay waxaan isu imaan ma okay beesha caalamka waa la fariistay we reading the book buugana akhrina waa sumeynana so Musa he has to be is soo diyaariye inuu is soo diyaariyo is soo hagaajiyo isoo garaysaa madaxweyne ku xilkiisa waa dir way marka garaysaa ningada biirse waxa lagu yiraahdaa meeshan hada yaa Soomaali ka maqan dir aaw dirti waako maxay ron dirti aqoonsara war ma dir baatiin ha waaka inta waa kafta way macna sida ay tahay baan idin ku sheegay iyo xaqiiqda seeta yaa Soomaali ka maqan oo majority hada waa goona waa dir way daarood waa jooga madaxweyne mar raba hawi waa jooga madaxweyne mar raba digri mirflo waa joogta gudoomiyaha baarlamaanka iska raban 0.5 waa jooga qadiijad diiriya xukuumay magaraysaa iyo professor Darxa hor orday oo xilwaanada waa qaadanay nimanka maqan waayo nimanka maqan booskii afarta qabiilo waaweyn ka maqan waa nimanka direed way especially beesha isaaq majority good magaraysaa then dir wala soo friisi miiska halka markay anigu aan sida wax idin ku fasir waa sababta u jeceshin duqblow oo 2.2k ugu daawanaysa because of I'm an insider I know a lot of things and I know buuga markii la qoro haddaan aniga qorin xataa sida loo akhriyaan ogaa nimanka markii waxa ku dhacday markii la yiri okay waxay dhan way soo dhamaatay miiska waa idin dhignay wax walba idin sameynay everything waa idin hagaajinay wax walba sida tahay ku dhacday let's talk ta xaqiiqda lagu yiri marka waa sababta la dhawaaqay odagii adeerka ahaa ee guurtigeystay waa sababta la wada dhaqaaqeen wuxuu dhan magaraysaa la wada ooyeen lagu yiri let's talk the reality xaqiiqda aan adeer wajahna lagu yiri magaraysaa sii soco ma soconayso waxa lagu yiri xaaladda sidan weeye saasa xujira let's talk the midnimada Soomaaliya lagu yiri waa ka hawiye waa fadhiya
digli mirifla waa fadhiyaan daaroodna waa fadhiyaan ayagoo madaxa dalka ugu sarreysa let's talk dir adaa matalaaso ma magaraysaa ninka yara musabe it's true dir adaa matala because of dir ninkaloo mas-uuli markaa ma joogin qabiil ahaan let's talk baa lagu yiri next su'aal way soo badan markay arkeen oo sawirkay arkeen iyo protocolkii qaabka waxa loo soo diyaariyay systemka siyaasadeed ee loo soo hagaajiyay meel ka noqdaan ma taagno musabixi waa waagi ba ku bariyay bahal barafoon caadi ahayn ba ku dagay wuxuu arkay farmaajo wuxuu arkay kheere wuxuu arkay mursal baashi wuxuu yiri Yamamoto ra'iisul wasaaraha Ethiopia garaysaay madaxweynihii dalka garaysaay Djibouti musabixi waagi ba ku bariyay meel ka noqdana ma joogo meel uu ka noqdo uu dood ka keeno uu ka doodo ma jirto I'm talking about the reality حقيقة يقول نعم ذي مسبحي تلفوني وعن ساق ندي بسوعن ونمك وانا قاعدين وربهاش مرة سملحهم بيني وجرتها ما كوس عنا ما حنسبنا ما حنيلنا سيح وجرتها وحاجة أسعة رجعنا ليش رتبة أتمن كسومالي وقبيل سومالي وهيب يعدوي إن ضد ليش رتبة أتمن سومالي لو حكوا شيء سافر قبيله وين ولا يراد الدر موسى وادي قاعد مسؤول كتاي ديلي مريفله ومقرسها مرسل وهرجوجا مركا هادو ياي دارود ومقرسها فرماجه وكدشو بوسكود وكفديو خير وبيش هويه كفديو وافدي هذا در لا هذا الهويه واك صدخ waxa Soomaali kala maqan waxa hadal la stockda midowga ka hadal midowga marka maxaa waay in beesha direed ku soo biirto saddexdan qabiile kale waaweyn ee Soomaaliyeed ee walaalahood inay ku soo biiraan oo la hadlaan musabbir anaga fidba kama hadlayno wax midnimo la yiraahdo ka hadlayna ma jirto wax magaraysaa anaga baasha ka hadlayna ma jirto maxaa naga baga warta waxa lagu yiraahdaa ragno sababta halka u nimid waan dir ay la midowdo walaalahooda daarood iyo walaalahooda hawiye iyo walaalahooda digili barifle la midoobaan wax kale meeshan uma qarashka wax kale uma bixinayna lagu yiri qarashka wax kale uma bixinayno wax kale uma sameynayno wax kale hoos uma wadno waxa lagu yiri telefoon qatay shirka waa garaysaa dib isku noqdeen maxaa sameynaa waan la gaaday hal nin oo baantaan wadnaa garaysaa baashu weligood wuxuu tuqbalow nooga sheegayeen social media ka sheegayeen wixii beesha caalamka la tusaya waa run beesha caalamka ani ma ana tusay aniga ma tusadna ma tusay beesha caalamka waxa tusay waa idinka because beesha isaas kale isaaq waxa dhaqsay dirbuga garaysaa waxay sheegayeen xaaladda wasfar anagana gaaday maxaa loo sheegay kulay garad محلو شيء إن خير الله سوق حينه محلو شيء إن مرسل الله سوق حينه قرر سأل له وش شيء because of أنت صدر ووفد الصوماليات الصادري أو لو صدره وحاتري وفد جالس مقرر سأل رج صومال لما تري ولا قرر بالرج صومال لما رجال تجيبه عقيدة نبتي نبتة وعيتها صومال لما مر والبوش اللي قبته ما بينته أنت إذا عليها يماذا بحرجره أني ورسن قلبي على صدري أنا ما مثل أنا مثل ورني رباطال على صدري أنا ما مثل أنا مثل ورني مقرر ساق على صدري ورامي سخطك أنا مثل لي كلي ولا قرر إساقي ربانتي مقرر ساق بعشوا ريالتي والله تجي أوكي مرة بس قبيل مرة بتاعنا كمان لسه ورا مرسل الصبح ورا خارج على أنا قرر كله الرجال هو فريسن شيء تا هو فريسن ورنتي مركي أي تبيت oo xaqiiqdii ay timid oo nimankii isaaq ahaa oo muuse uu hogaaminayo warqad ingiriis soo qortay war hadal bal wiiro ingiriiskaaga akhri waxa doonta akhri madax iyo dadkaaga Soomaaliyeed hor fursalka madaxda caalamka iyo madaxda geeska Afrika iyo ragaagi kula dhashay Soomaaliyeed ayaa hor fadhidaaye bal wiiro rakaama saarta ay rag iyo boota islaamiya carunti la soo risaaga wallahi war farmaajo war duqbro ya mirqaan iyo dadku kama saarta lagu yiri waxa lagu yiri gogoshii saxda ahayd cid waligaaba raadinaysa waraysa cid waligaaba raadinaysa waligaaba doodoraysa yaa fadhnaaba lagu yiri iyo gugu hadin akhri wixii allaala wixii soo qorad wax allaala iyo wax u baahan tood raadinaysa noo akhri oo cadaladaha ku qabtaa lagu yiri laakiin waxba meesha reason baan u nimid meesha inaan ciyaarno hotel degno diyaaradda magaraysaa gini baabu ma meesha ginisa war ma sheega meesha waagi meelaha diyaaraddu raac baa lagu yiri halkan reason baan u nimid oo صدقي أها موسبحة وحوي ورقد بقاتي معناها ورقدي سو حفدي قرآن كيسو سو درسدي لكن ميسكا هرتيسا رج فرديو رج وفيلي مهن رج ميسك هرتيسا فرديو رج وفيلي أو إصلاها رجان يهوشان سنة ودعيسا ماله وأنا سببته
وعالم كنتو صور فريستي أو تيفيا درنا هيان أوديجي اسكو كده يعني حقيقة مركو وعي تاي موسى يكون تاجر سوا ضد كنيجي وتصل ماليدين حقيقة وعي تاي وحاوي وذا هذا كان مرول وذا هذا اللي وحاوي إن ربط لقوا ذا ربط وعوي من دماغه ومضى الصوماليين أنا وهرجي يسوي حبيبي ميال ضد كيجا كونول أنا يقدر الديار أمي أنا ماشاس لوضع بروت نحن كدر ترى عنه الديار أمي مقرسها إن عرور تهذا مقرسها وحبرش لانه كل عذرة ديار أمي وحل لقوا ذا هذا وحاوي من دماغه ومضى الصوماليين إن أمضى الصوماليين لما ذيو أو يمين نقطة أو لقوا ذا هذا يلا تجي شركة اللؤاد بوسي جروب كل السعودية واديدين نوشة قال لقوي الرئيس كوديدين وشيء وايد مقرسة رئيس كوديدين أو شركة أوسن لين شركة مالا بدن بوكيم تركي بوكيم دبي بوكيم إثيوبيا تكسرتين مالا بدن عالم كم بتكسرتين وصوت إيران إرنو ولا صوت دبلوماس مدة 8 سنة 2011 ببلا مدة 8 سنة صوت على الويري وباش عالم كسبب موصل لو حناقي يسمى لنا ورنا ويصبح دونا بريت الشر أيال الغبن دونا يلوي الرئيس كأودي دنتهين إلا وحن ماشان أنمد وأنا إذيك يا الصوماليا كوض هذا الشان من ماذا ومضى الصوماليات تاسع نبرتن أنمده واحد كودي دن نوع شيء أو ورقتنا نصية ومقرسة نوع عدية لويري مقرسة نوع عدية أو نوع شيء رئيس كشركة كودي دن إن الله قالن قطب كيس وقوم سنة محل وضع هاللي بالوير وحل وضع هالله يو محيتها إلا دارودنا كاني درنا كاني دارودنا كان الدقل مرفنا كاني هوينا كان الوير وإذا هرفض يعني وكوا الرجال كعوانيشان هويات كعوانيشان وكان مسؤول كفري كي كانت دارود بكعوانيشان مسؤول كودي يفري دقل مرفنا كعوانيشان مسؤول كودي يفري روش هذا الوير رجع كوضع هذا صوبته مقرسة إساق وقصوا بيركرو أفرتن قبيلة ووين دب وقصوا نو شاقة لماك موسى يجروب كيسي ورقدنا وسوق ورواين وصوبته كرسي جنك دارود كرسي الآن يكون عدويا والنهجة wax warqad oo diblomaasi ah oo siyaasi ah oo qoran oo beesha caalamkii iyo madaxda geeska Afrika barta fadhiday ee dib inta ugu soo celiyaan ay yiraahdaan war waxan qodobka noocaas ku diidanay way sheegayaan because of door mar oo hore dawladda Soomaaliya oo qoladan la shiraysay waxa weeye waa oo diideen garasay daliilay keenayeen idinku cilmiin daliilay keeneen oo sababtoo rag Somaliland ka socdo deegaanada Somaliland ka soo jeedo ayay excuse ka dhigin jireen raggaas garaysaa kama soo qayb gali karaan isaasu shirka dib ugu dhici jiray shirka markaa kii ugu dambeeyay shirka waa kii ugu dambeeyay waana xaqiiqada dhabtaan idin sheegaya $1 billion ayaa Soomaaliya soo qaadanaysa oo la siinaya budgetka Soomaaliya sanadkan hadda aan soo dhaafnay markii wasiirka koobaad ama ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya baarlamaanka ay ansixiyay budgetka sanadkii wuxuu ahaa 340 ama 380 milyan ayuu sanadka dhan budgetkeeda ahaa soo shirkan iyo aqoonsiga Jubbaland aqoonsanay labada sano ku meel gaar ka siinay iyo doorashooyinka soo socdo iyo hawshan hadda Somaliland shirkan Somaliland ka hadlayo Soomaaliya markii ugu horeysay sanadkan 2021ka dawladdu soo baxdo oo dalka Soomaaliya ku guuleysato budgetkeeda wuxuu ka tagayaa 300 ilaa wuxuu gaarayaa 800 oo kun waa $800 million hadalkayga faham Soomaaliya budgetkeeda hadda sanadkii waa 380 kun ama 300 iyo meelahaas waa 360 weeyaan baan u maleynayaa soo dawladdan hadda imaan doonto hadda anaga soo noqono nabad iyo nolol iyo magaraysa hadii dawlad kale Soomaaliyeed ay timaado muddo sanad gudihiisa leesda sanad waxba uma dhaxeen Soomaaliya budgetka sanadlaha ah ee Soomaaliya loo ansixin doono wuxuu noqonayaa $800 million which is GBD-ga Soomaaliya kor u kacaya sababta deemihii ayaa Soomaaliya laga cafiyay Soomaaliya waxay soo qaadan kartaa deemo meelo far badan bay deemo ka soo qaadan kartaa ma sha Allah arrintaasi marka xaaladaha soo dhan ba siyaasaddan ku xiraa beesha caalamka iyo Soomaaliya wada shaqeynaya dawladda Soomaaliya madaxa looga istaagay beesha caalamka cadaadis saartay haddaad rabtaan ba dhaqaalihii wad hagaajiseen ba lagu si wanaagsan qurux badan ba dhaqaalihiin reform ugu sameeyeen dawladda federaalka si wanaagsan ba ciidankii dawladda Soomaaliya dhaqaalihiisa u siiseen si wanaagsan ba nidaamkii dawladeed u wadeen ba lagu yiri marka si ma garanaysaay hawshaas oo dhan ula timaadeen oo deganaanshaha siyaasadeed waa inaad hor fariisataan ba lagu yiri oo la heshiisaan
xubnaha maamul goboleedyada ee federaalka ka tirsan waa inaad la fariisataan waa inaad la hadashaan waa inaad wax idinku dowladda federaalka haddaad tihiin waqtigan saacaddan la taagay wax badan inaad ka tanasushaan wax badan inaad ka tanasushaan dowladda Soomaaliya wax badan bay ka tanasusay Axmed Geeda Naar oo adeerkay oo intaas magaraysa xaaladiisu bariga dhexe ahayd oo waliba dowladda iyo beesha caalamku dhanba ay diiday madaxweynaha Soomaaliya waxa lagu qasbay inuu 2 sano aqoonsado Axmed Madoobe right now saacadan iyo waqtigan idin la hadlayo waa legitimate way waa madaxweyne ku meel gaare oo maamulka maamul goboleedka dowlad goboleedka Jubbaland ka taliya weeye shirka 27 ka dhici doono June dhamaadkeeda dhacayo ee maamul goboleed dalka imaan doonaan Axmed Madoobe soo suudkiisu uu soo friisanaya si farmaajo waa sarkayaan waa qod qoslayaan waa soo dhaardhaaran doonaa waa kala tagi doonaan aadiyad Somaliland sidoo kale taydana qaybtaan nabadeenta ee budgetkii hawshan iyo dhaqaalaha Sacuudiga doorashaan socoto iyo ayadana loogu talgalay saas ayadana qaybta ku timid marka Somaliland si triibkan aysan andacoonin oo aysan u dhawaaqin oo aysan magaraysaa hebelo baal kale toon iyo door ahayn bal soo diray iyo hebelo iyo door bal soo diray series u dheen waxa weeye game aan qurux badan oo wanaagsan hadii hadda dib loo dhigo Somaliland barrito shir ba dhacay barrito insha Allah daleer hadda habeen bay ku jiraan Somaliland iyo Soomaaliya iyo Djibouti habeen bay hadda ku jiraan insha Allah barrito markuu waaga bariyo Somaliland haday la imaan weyso ajanda macnaha qoraal sax oo siyaasi ah oo beesha caalamku ku qanacad haday barrito la imaan weyso oo soo hordhig weyso madaxda halka joogto ay soo hordhig weyso Somaliland xaaladeeda bariga dhexe noqonaysa xaaladeeda bariga dhexe noqonaysa beesha caalamka dib ay isugu noqonaysa dawladda Soomaaliya dib ay isugu noqonaysa qabeelada Soomaaliyeed barta ku dhiban sida dhulbaantaha ciisaha iyo warsangeliga iyo magaraysa qabeelada faraha badan ee barta degan waxa weeye xaaladoodu waxa weeye go'aan wanaagsan baa laga gaari dhaqaalahan hadda laga hadlaayo iyo budgetka hadda laga hadlaayo 30% umaleena waxa adiga 30% 25% something like that wax noocaas يا العقد سديد بقول الصومالي لو برامين وهل بليون دولار ويان oo sanad budget laha Soomaaliya ciidankeeda dhaqaalaheeda magaraysaa dawladnimada lagu wada lagu dhaqaajinayo ya halkan milyan Somaliland waxay shirkan hadii wax at least memorandum ama isfahan uu ka soo bixila Somaliland 30% geeda ayay qaadan lahayd magaraysaa Landereal ayagoo bartooda joogo calanko iska wato iska nikinayo oo xalfo iska wato 30% geeda qaadan lahayn dawladda Soomaaliya saas magaraysaa hawshooda ku socon lahayd oo magaraysaa 10 sano marka haday barita la imaan waayaan بريت هذا Somaliland لا إيمان ويش أجندة صح هي رئيسهم كأكودي تشركان هي صوبت أكودي دنتا إن لقاه هذا هذا من دماغ أمد الصومال إلا رئيسك الله هذا هذا وحوا إن أمد الصوماليات يمدودو قبائل الصوماليات الدستور كان قرطين الدب يسوسوا نقدان بقرر ساعد نبكي يتر حالات جرت لترحام بحيو هولا صدقن يلا قوة هذا مركز Somaliland شركة كيس تاكتي موسي جروب كيسي نمكي ساق وحير هذين كما هذلنا كما نوض هذلنا مقرسة كما هذلنا كما نوض هذلنا إن Soomaaliya أي مدودو الرئيس كان مش اللي يمنا وين Soomaaliya أي مدودو ويان مركز هذه وواسك تقبلوها وحبنا بفهمتين برو مالينيا ودبنتي وكسي بحيا هذا الكساع ده يصور كوسيدو يهاي بدي كل جيا Soomaaliya وحكوي شيء قبائل الصومالية قبائل ده سي وحلقوا سو كوبي أفر قبيل در ومسبح وكرش دارود أو كذا شيء مدحوين محمد عبد الله فرماج هوية أو كذا شيء رضي الله عنه رئيس الوزراء حاس على القر دقل مرفلة أو كذا شيء قدوميها برلمان كمدن مرسل أفرتاس مسؤول وأفرتا قبيلة الصوماليات كوضع شيء أي جيبوتي تجي صدح وهشيين والدولة الصومالية يضلك الصومالي ومد الصوماليات يعلق الصوماليات بمتكوين وهوية دارود يدقل مرفلة waxaa muddo 30 sano ama 28 sano ah banaanka taagnaa beesha la yiraahdo dir especially majority-geeda beesha Isaaq ayaa banaanka taagnay waafaqsan bamlana maanta marka in badan oo dood socotay oo beesha magaraysaa direed ee oran jireen annagoo dir baa xanaaqsan waanu dagaalamayna waana goray tii annagu hawiye iyo daarood iyo digli miriflan leeyahay inaan leeshina rabnaaye dooni mayno إن ليشين نندرة أما مقرسة إن ليشين دون من إن بدو كل علي جرين مقرسة أديات حالته ساسد ولي جد نوع سوري جنيش مركب ما أنتوا حلوين هدي حالته سيدا تاي مقرسة صادر منه نند بود درة إذا صادر منه أفضل قبيلة هو وين مدح ذو دي بعدين سور فريشيننا
idinkuna soo fariista aan ka wada hadalno sida 4.5 ka iyo dastuurka aan ku heshinay iyo qabalada Soomaaliyeed sidii la isu turxaan bixin lahaan ku heshin lahayn aan ka wada hadalno nimankii darwaaga ku bari shirka berrita la qaban doono shir saxaafadeed baa berrita la qaban doona shir saxaafadeedkaas insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo hadalkayga aad u dhageyso hadday Muuse iyo nimanka Somaliland illa imaan waayaan warqad diblomaasi siyaasi ah oo ay ku qeexi waayaan reasonka ay shirka ku diideen in qodobkii ugu muhiimsanaa ajandahaas ee ahaa midnimada ummadda Soomaaliyeed in laga wada hadlo reasonka ay ku diideen iyo sababta ay ku diideen hadday cadeen waayaan Somaliland dhaqaalaha UN siiso waa loo yaabaa ummadda Soomaaliyeedna waxa la leeyahay guul waan guulaysanay waana guulaysan doonaa Soomaalina way guulaysatay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh